khadka telefoonka waxaa hadda si toos ah ugu jira gudoomiyaha cusub ee dalka Jarmalka Mudane Sugule Maxamed Sugule oo dhowaan xilkaasi uu soo magacaabay gudoomiyaha xisbiga uu injineer Faysal Cali Waraabe. Gudoomiye ugu horreyn soo dhawow bal waa sidee xaaladda guud ee dalka? walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay. xaaladda guud ee dalka haddaan kaaga warramo aan ku nool lahay waa nabad qab. waa dal ballaadhan, wuxuu ka kooban yahay 16 gobol. aad iyo aad baa loogu wanaagsan yahay, guud ahaanna waa nabad qab. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Mudane gudoomiye aad baad u mahadsan tahay. xil cusub baa lagu magacaabay oo ah gudoomiyaha dalka Jarmalka ee xisbiga mucaaradka ee UCID, bal sideed u aragtaa dareenkaaga xilkaas lagu magacaabay? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. walaal haddaan dareenkayga cabiro, dareenkaygu aad iyo aad iyo aad buu wanaagsan yahay. aad baan run ahaantii ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo mas-uuliyiinta xusbiga UCID, xusbiga cadaaladda iyo daryeelka, oo run ahaantii ah xusbiga keliya ee maanta u ah lafdhabarta Somaliland. Somaliland maanta xusbiga keliya aynu odhan karno waa hoggaanka Somaliland u haya ee muunadda ah, ee la daawan karo, ee ka madax bannaan qabyaalad iyo waxa weeyaan bulsho kala qaybin, ee aan kala jeclaysi deegaan lagu dhex arag. waxaynu odhan karnaa waxa weeyaan waa xusbiga UCID. hantida qaranka ee la wada leeyahay ayuu ka mid yahay xusbiga UCID. wuxuu ka mid yahay ciidda iyo calanka ayuu ka mid yahay xusbiga UCID. waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Somaliland, gobol kastoo ay joogaan iyo degmo kastoo ay joogaanba, inay doortaan Faysal Cali Xuseen oo ay maanta ay ka ilbaxaan samaa loo jiido iyo waxa weeyaan xusbi hebel baa leedihiin iyo waxa weeyaan waxyaaba aan dhaqaynin qarankan curdinka ah ee qiimaha badan ee aynu ku naaloonayno. waxaasi ma dhaqayaan. waxaan u soo jeedinayaa dhallinyarada reer Somaliland meel kastoo ay joogto, waar nin maanta inaga saari kara xaaladaynu ku jirno aynu dooranno. nin isagoo duhur jooga seexanayoo khuurinaya iyo nin qabyaalad ka dhammaan waayey oo markuu doono intuu soo taaga mimbarka odhanaya anigu caaqil baan ahay. waraysigii ugu dambeeyey uu bixiyey uu soo istaagay wuxuu anigu caaqil baan idiin ahay horta mise waxaan suldaan baan idiin ahay. waa ninka meeqaamkaa jooga. iskuma hadlayn karno, uma aamini karno, oo kuma eegan karno. sanad baa uu hadhay oo sanadkaa werwer baan ka qabaa Somaliland iyo shiritaankeeda. ugu dambeyntii mudane gudoomiye maxaad fariin u diraysaa bulshada ku daawan doonta ama ku dhageysan doonta? bulshada daawan doonta ama dhageysan doonta waraysigaygan aan siinayo Sahan TV, waxaan ugu baaqayaa ugu horreyn inay isbeddelka ka qayb qaataan. waxaan u kala qaybinayaa 2. waddankanaan mas-uulka ka ahay ee Germany iyo dalkeenna barakaysan ee Somaliland. waxaan ku horeynayaa waddanka Germany. waxaan leeyahay mas-uuliyiinta gobollada inay ka diyaar garoobaan oo ay guntiga giijistaan oo ay u diyaar garoobaan doorashada soo socota. waxaa inoo hadhay muddo sanada inay u diyaar garoobaan waxa weeyaan dhaqaalihii iyo dadaalkii ay gelin jireen xusbiga inay labalaabaan. taageerayaashayda waddankiina waxaan u dirayaa fariin gobol kasta ay joogaan,
khaasatan degaankaygii. maalintii doorashadii 17kii muuse biixi cabdi loo codaynayey waxa weeyaan wuxuu ku taamay oo uu ballan qaaday inay Caynabi hesho biyo macaan iyo waxa weeye inay riig hesho. isliya maanta oo uu qaldhabayo oo uu xilki ka sii daadegayo oo aanu sharaf lahayn oo aanay cidi dib u dooranaynin oo aynu wada ogsoonnahay karaamo darrada ku dhacday iyo waxa weeye meeqaamka ay taagan tahay waxa weeyaan dowladda muuse biixi cabdi iyo xukuumadda u hogaamiyaaba aynu ka wada dheragsannahay. halka ay maanta taagan tahay waynu ogna. waxaan leeyahay maanta danta dalka iyo dadku waxay ku jirtaa inaynu dooranno oo aragno oo aynu hargihii laynoo tumi jiray iyo daasadihii laynoo garaaci jiray aynu ka waaya aragnay oo aynu dooranno injineer faysal cali xuseen oo dalkana difaacaya, dalkana wuxuu qabanayaa qabyaaladna ka madax bannaan oo inoo waxa weeyaan noqonaya laambad iyo waxa weeyaan iftiin u soo baxay Somaliland.